munaasabadan ayaa ahayd furitaanka horyaalka haldoor ee liiga sideedaad waxaana ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha qorshaynta qaranka shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Soonyo iyo bahweynta guud ee haldoor iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha bahweynta guud ee haldoor Mukhtaar Cabdi Jaamac ayaa ka warramay tartanada kala duwan ay qabteen iyo marxaladii kala duwan ee soo maray iyo tartankan muddada uu socon doono kaasi oo sheegay in muddo 3 bilood ah uu tartankani dhex mari doono kooxaha kala duwan ee ku midoobay bahweynta guud ee haldoor tartankan ayaa waxa uu ka socon doonaa garoonka kubadda cagta ee Turkiga ee magaalada Hargeysa ujeedooyinka u aasaaseen in bahweynta haldoor la sameeyo waxa kamid ah jimicsiga dhalinyarada cuslaatay maadaama dhalinyaradii ay miisaankoodii sii kordhayaan in la helo dhalinyaro firfircoon oo maskax ahaan iyo jidh ahaanba firfircoon marka ujeedooyinkay kamid tahay waxa kale loo aasaasay isdhexgalka dhalinyarada iyo la dagaalanka qabyaaladda runtii waan dareemaynaa bulshada aynu ku noolahay qabyaaladdu miisaanka ay ku leedahay iyo halkay ka taagan tahay si taa looga hortago dhalinyarada haldoor waxay ku bahoobeen fikirka ka duwan oo ka madax bannaan oo ay ka sifeeyay waxa loo yaqaan qabyaalad waxa bilaabmaya qayb kamida waxyaabaha haldoor oo ah wareegga liiga sideedaad wuxuuna ka bilaabmaya garoonka Turkey Stadium waa liigii sideedaad 7 liigo hore noo soo dhamaaday wuxuu socon doonaa muddo 3 bilooda kooxuhu waxay ka kooban yihiin 6 kooxood kooxuhu waxay is arki doonaan min 2 jeer marka waa 10 ciyaarood baa noqonaysa hadii la yiraahdo muddo 3 bilood ay noo socon doontaa haddii la hay'ado waxaan rajaynaynaa inuu si nabadgelyo noogu dhamaado waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Soonyo waxaana uu ka warramay isdhexgalka dhalinyarada runtii arrin aad u wanaagsan weeye waa dhiirigelin waa waxyaabaha runtii loo baahan yahay in la sii wado dhalinyartu marka ay yaryartay ay kubadda caadi ugu dhex jirto maaha runtii in loo qabto tartanada noocana waxa weeye marka qofku yar cuslaadana uu u baahan yahay runtii ururkan waxaa la sheegay inaanu ka shaqeynin kubadda oo macaawinooyin sameeyo oo leeyahay group akhriska runtii waa arrin wanaagsan waan ugu hambalyeynaya agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qorshaynta qaranka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna dhalinyarada halkaasi uga soo jeediyay hadallo dhiirigelina iyagoona bulshada iyo dhalinyarada kalena u soo jeediyay in ay mar walba ay ku dadaalaan isdhexgalka iyo ciyaaraha fudud aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan maanta idin kala soo qayb galo wareeggii sideedaad wareegga muxuu ahaa haldoor ama muxuu ahaa tiimka haldoor oo sidii la sheegay aniga lafteedu aan xubin ka ahay haddii aynu wareeggii sideedaad ku jirno waxay tilmaamaysaa runtii in kooxdan muxuu ahaa ama tiimkan haldoor iyo shaqada ay hayaan ay tahay shaqo guulaysatay isla mar ahaantaana si guula u socota wareeggii sideedaadna maanta aynu bilaabayno waa wax runtii aad iyo aad loogu farxo waxaan ku bogaadinayaa muxuu ahaa guddiga wareegyadan maamusha oo si habsamiya oo qurux badan oo ay xirfado ku dhaahantahay runtii muxuu ahaa hawsha u wada waxaan idinkula dardaarmayaa in wareegga maanta inoo bilaabmaya uu si wanaagsan oo hufan inoogu socdo sidii wareegyadii horeba in dhalinyartu ay isdhexgal iyo iscaawin fara badan ku jiraan in halkan ay ka muuqato waa arrin runtii muhiim ahoo in la isdhexgalo la isku xidhnaado wax la wada qabsado la isabaabulo waa arrin mustaqbalkeenu ku fiican yahay taasi waxay keenaysaa marka waxa la arkayaa dhalinyarta inay isku duuban tahay oo Hargeysa iyo Maroodi Sheekh ay yihiin gobol saa wada socda isdhexgalka runtii inuu bato oo balwadaha lala dagaalamo ayaa mustaqbalkeenu ku fiican yahay gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay horyaalka haldoor ee liiga sideedaad ee dhex mari doona kooxaha ku midoobay dalada guud ee haldoor haldoor waa dhalinyaro aad u qiimo badan oo runtii mar walba ka shaqeeya dhiirigelinta dhalinyarada iyo sportska iyo dhiirigelinta ciyaaraha waan uga mahad celinayaa runtii sidaa fiican ay soo abaabuleen dhalinyarada kala duwan oo gruubo kala duwan ah runtii qaybtan maanta aynu daawanayno koobkooda xafladda joogno oo ah dhalinyarada cuslaatina waan uga mahad celinayaa insha allah waxaan jecelahay oo u rajaynayaa inaanay noqon koobkii ugu dambeeyey maadaama ay soo wadeen koobab ka horreeyey oo 8 koobab hore ay qabteen kana uu kii 9 yahay insha allah waxaan rajaynaynaa ka tobnaad iyo kuwa ka dambeeyana insha allah inay qaban doonaan ka wasaaradaha mar walba diyaar baan inaan iska rabtaagno oo la shaqeyno Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.